Hanaanka ganacsiyada yaryar ayaa ka jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo sanadihii ugu dambeeyayna aad u soo badanayeen xarumaha ganacsi ee magaalada laga hirgeliyay. Inta badan hal-abuurka ganacsiyadan magaalada Baydhabo ku soo kordhay waxaa iska leh haweenka magaalada. Waxyaabo kala duwan ayay ka ganacsadaan haweenka, kuwaasoo isugu jira ganacsiyada casriga xilligan iyo waxyaabo gacantooda ay ku farsameeyaan. Batuule Sheekh Xuseen Xaamud oo ka mid ah haweenka ka ganacsada dharka kariska ee gacanta lagu farsameeyay ayaa VOA u sheegtay markii ay bilaabaysay ganacsigan sanado ka hor inay ku bilowday xarun yar, balse haatan uu horumar sameeyay ganacsigeeda xarumo kala duwan oo ganacsina ay ku leedahay magaalada Baydhabo. Walaal ka ganacsadaan wali ku mid aha dharka la kariyo oo marna arday la baraw marna una meel raayso giliyana marka inta badan maacuun iyo alaab kala gadaan laakiin wali in badan dharka kariska wali ku yaabay maalintii madii hore garbasaar idra dad ku gadaw leeyahay laakiin hada alxamdulillah iyada bileeridi ugu yaraan maalintii 60 daqiiqo 70 daqiiqo 60 daqiiqo ya maalintii kariye oo magaalada galiye marka alxamdulillah iyada faylay sida oo hada meel raay ganacsiga dareeran faylay laakiin muhiimadda may buu hal abuur aan abuurdayo oo in geedka degmada Baydhabo hamar dhar kariska lan ku sheenay inay aan meel raay bedela waana eedan ka guulaysidii ugu yaraan dukaamo oo tuman amal ah haysada in badan kale hata meel raay in balansiin marka ganacsiga inta badan dhar karis waa gartay dhawaan waxaad soo bandhigteen waxyaabo kala duwan oo adinka gacantiina aad ku sameeyeen. Waxyaabaha aad soo bandhigteen maxaa kamid ahaa? bandhigi daraad una bandhigni waliba ku mid haayay dad badan ahaayeen ganacsiyo yaryar ah haayeen qaar malaba sheeneen qaar wali sheeneen meel raayis saliidiyo suubiyaan oo yoon galanti ku suubiyaan qaar ma sheeneen atari sheeneen laakiin ana markaas gaar ahaan walaan meel jeeymahay dharka la kariyo oo ku mid ah go'yaal sariir la saaraw diracyaal iyo garbasaaryaal iyo meel raayis set oo garbasaar anay maskax ahaan anay fikri inay arintun meel raay dhar karisku ana suubiyo macallin xamar ku lukooy haddana macallinkii xamar ku lukooy dadkii usuwal in bariya shaqaaliyinkii ilaa tuman qof oo shaqaale oo bilibaasan siya wala in kariyaan ruugan dulankii oo markii hor barina xamar bahay laakiin hadda dadkii oo ay tahay wala bari dadkaas way buuha boqolkiiba boqol hata waliwada waa gartay marka dhaqdhaqaaqa ganacsiga marka aad fiiriso iyo hal abuurkan aad la imaatay waa sidee? والله بالله دقدقاق إذا أم فيلي ميك فيليها معناها دتك همجي بعتقي أو بلدك بعتلي لك قاعد هاي هتبقى كي بس قالون دتك ولي قاعدون قدرن لرك لكريو دقدقاق شيء نفيلي ما دام ما دهور عن هجيد دتك مركي درا إيجار بسارك ستك لقضاي ميل هاي $100 لقضاي أنا $5 كوالي دقدقاق إذا أم فيلي مركا كجنا عسنه maxay ku jecel yihiin marka dadka dharka la kariyo? dadka dharka la kariyo may ka jeelin macnaha lamba naqshad isu fadow ya lan kariyo midna dadku wali raana qaar naqshad oo way haysanaa sida halnayn kariyo marka wali ka jeelin naqshad alla naqshadii fadaayanga ku helaaya ganacsigii ugu horeeyay oo noociisa aad ka sameysana magaalada Baydhabo mise hore ganacsiyo kale ayaad u soo sameysay? ganacsi ku horeeyay oo ana Baydhabo ka soo biyow in badan aan ka fikiraay in xamar la ku maarma walaagay la fadaw oo dharkaas kariska wali hadda naftiye way ba hadda naftiye bilaaw fadaha shaambada silan kariyo iyo hadda alaabti ay ku leelkooy in hadana shaambe isaabun kariyo faday hal abuur kale oo aan hadana maskantay ka dheediyo marka Baydhowna hoolas inay aan baahanta ogaad haddii aad tihiin ganacsada yaryar yaa taakuleen ama garab ka heshaan? والله ganacsiga aan hadda way buuha maadaama uu ganacsi yar yar ana hadda inta ku hor wali buuha mayna saacidaayay bangiyada hatta way buuha ku qayb galaan bangiyada ku qayb galaan hatta bandhiga ku qayb galaan haddana way leeyeen saacidaan inay isan meel raaysan lacag deema isan siina hatta wali baneen fududaayna leeran gabdho hadii atin hatta damiin badan saasa ma isan ku fadaw sidoo kale gabdhaha aqoon-yahano ah ayaa Baydhabo ku soo kordhiyay ganacsiga online-ka waxayna sheegeen isbedel iyo horumar dhanka ganacsiga inay dareemeen tan iyo markii ay la yimaadeen hal abuurkan ganacsiga. bismillaah magacayga Balaare Ruqaysha Cabdullaahi ana milkiilaha carwo runjinaad waxyaabaha ka ganacsado may buuhay sida dharka dumarka qaybo shishal duwan iyo boorsooyin kaba
barnaamijkan ganacsiga maybe ay dhiirigeliyay familkay inkastoo markan koreyti ana online ka bilaabay laakiin markii dambe dhiirigelin badan familkay iyo customerkay online kula ogaadayna keli inka suurtagal inaan xarun furado marka xaruntaasna waxyaabaha la gado sida dharka cabaayado iyo kabooyin boorsooyin oo jijimi saacada muddada aad bilowday ganacsigan horumar intee leeg ayaad ka samaysay maasha Allah horumar fiican ku sameeyay ganacsigan inta muddadan hadda ka jira almost 5 sano camalo markii hore online ka gada jiray xaafada ka gada jiray laakiin hadda alxamdulillah xarun ay furan insha Allah min rajaynaa xarun lamaadana furado mis xaruntaan hadda ka ganacsadayna bilaari marka waxyaabo badan ama leerayso faa'iido iyo horumar ayaa ka dareemaa intaan hadda muddadan ganacsigan ka jira alxamdulillah dhawaan Baydhabo shirweynihii ganacsiga ayaa lagu qabtay maxaad waaye aragnimo ah oo aad shirweynahaas ka soo kororsateen wallahi maasha Allah waaye aragnimo fayla fikrado cusub inaynu la koyna wala badan ama leerayso ku kororsanay armayba kumid ahaa dadka oo product meelaha ka bandhigay oo ka ganacsadayaan dad badan oo leerayso meelaha ku qayb galay oo waxyaabo kala duwan sheenan aragay maasha Allah taas ka shakhsi ahaan iyo ka ganacsi ahaan ma in la muuqatay inay horumar inta sababtoo markii koreyti oo barnaamij noocan ah magaalada Baydhabo lagu qabado oo haddana ganacsi ku saabsan marka mayba dareemay in meel raayso fikrado badan ana meel seeti ayaa ku qaaday esaas oo kale anina Janice in hay'ad inana product ina dadku gada wana dad ka barada maasha Allah ma ero kore wal badan ay kordhiyay ganacsiga hal abuurka ganacsiga koonfur galbeed eediyada meel raayso ka faa'iideysadii min rajaynay fursado oo kale oo ganacsi ana hal abuurayna la kooy doono ugu dambeyntii maxaa keenay dumarka inay ku soo bataan ganacsiyada yaryar ee ku soo kordhaya magaalada Baydhabo wallahi sababtu ma maleeyay in meel raayso shanti online ka wal kasta fududaay sanadan dambe hadda waxyaabo aan ka badan waliba ay bilaanta ganacsiga iyo xirfadoosha iyo hal abuurshay ku gudbiyaan inay aalada internetka qaybasho shilduun marka wallahi wali koray meel raayso waa horumar faylo oo meel raayso haweenka sameeyaan waaye inay ganacsiga oo saan koror mid kale hoob ana ka darsada barnaamijkan oo hadda South West Innovation Hub ayaa qaban qaabin oo bandhig hal abuurka koonfur galbeed waxyaabaha haweenka inay xirfadooda bandhigan fududaatay ma haytay urur oo may bajira South West Women in Business leerow oo ururkan networking usan sameeyo bilaanta oo ku nool deegaanada koonfur galbeed oo ganacsatada yaryar iyo kuwa qaarsho oo xarumo leba oo iska xir ganacsi sameeyo marka madalan waxyaabaha fududaay oo in haween badan saas walhan bandhigan meer kore ururkaas iyo ku midaysan waaye ururkaasna may batusaalinaya dhammaan ganacsatada koonfur galbeed ee haweenka marka may dareemahay in meel raayso horumar badan iyo soo bandhigis badan xirfado shil duwan in meel raayso qaybku ay isku xirnaashaha oo ururkaas South West Women in Business taasna fududaatay in meel raayso haweenka iyo naqadan haano xirfadoosho waqtiyadan ka dambeeyay bandhigan waxyaabaha haweenka ay ka ganacsadaan waxaa kamid ah malabka oo si aad ah loo kala gato malabka magaalada Baydhabo waxaa loo qaadaa gobolada dalka oo loo iibgeeyo muslimo aadan waxay kamid tahay haweenka ganacsada magaalada Baydhabo waxay caan ku tahay ka ganacsiga malabka muslimo ayaa shirweynihii ganacsiga koonfur galbeed ee horraanta toddobaadkan ka dhacay magaalada Baydhabo waxay ku soo bandhigtay wax soo saarkeeda malabka shinnida waxaan ka wareystay ka ganacsiga malabka ka ganacsade bandhig daraad una suubiyaan waliba ka bandhigay malab yaa ka bandhigay oo wadani ah oo la ku helo koonfur galbeed oo meelaha maasha Allah faraash oo nadiif ah ka ganacsade waa gartay marka malabka aad ka ganacsato halkee ka keentaa wali ku sheenayeen tuulooyinkan oo boqol hooseeda si baay hooseeda ku sheenay magaalada dhexdeeda ku sheenay tuulooyinka ku sheenay baawar yar yar lahayn saare meel raayis macaamiila kala tuulooyinka lahayn ku diray waa gartay marka hal abuurkan malabka aad ka ganacsanayso sidee marka hal abuurkan ku samaysay
hal abuurkan wali ka sameeyay abaabagaya shinada meel ay dhaqaalay jiray gurigaano yaala jirtay meel ka tababar qaaday u saacidii ma sha Allah waana ka faa'iidi wali bagadaayada muddo oo la karoogato ma ishan sin hadda ku hor ee gadahay malabkan oo ma sha Allah waana ka faa'iidi kaliyanti badan ka laha dalkii dibadda la dhoofiyo malabkay waa tahay in muslimu ma u aragtaa horumar dhinaca ganacsiga inaad ka sameynaysid malabka ha zaid ganacsiga horumar iyo meel raay ku sameeyahay waa baka dhaxnooladay markan waa la qabsaday maadaama dibido iyo dalkii hariir la lahaa malabkana malab nadiif ah oo lambogdi ay wali baan roonya malabka sab oo kitaabada Ilaahay sheegeen alooladan ka saabsanida min daawada kitaaba laga sheegay malabka may ku dheerada korlankiba oo barada isticmaalshay musiibaha keen haysa ma jira marka ganacsigaaga dad ku xiran oo magaalada Baydhabo meel ka baxsan kaaga soo dalbada ha zaid waliba kumid ah Muqdisho oo kale kumid xajka markii la baho waliba la dhoofiyay meelaha xajka meelaha Saudi Arabia lan qaade wali lan qaade Nairobi lan qaade Mandera oo kale lan qaade wali kale taa gobolada Boqol iyo Bay ilaa usuba malabkii ha ku go'ay wal oo ka gadade eeda ma sha Allah ka bogdi ganacsi faylo ugu dambeyntii marka haweenka ganacsiga magaalada Baydhabo maadaama aad ka mid tahay maxaad ku boorinaysaa ganacsatada kale haweenka magaalada Baydhabo ku dhaqan والله هرت جناعسي ما يبغى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضاء برخيسني إن ما يكبري لهاي أو كدير جري لهاي وين كجناعسدان جرياش ولا حد يوك جناعسد كرام ستة أكل أنا هذا مال الرئيس جورجي اسكت قدام ما شاء الله وأنا شقي سده هواين كولي بانك باقي أو كون فرق البيت هجار هنگا وين كسومالية دون ولا إنك باقي إني وشقي سده نفتيو دير جريان كار هنگ كون فرق البيت إني وجوريها كجران حتى شقي سده كرام جوري لإني له كوبها ما أضوها بطني شقي سده كرت أضوه كجرتني شقي سده كرت waliba laha anti tuugsada laaytan oo isgacan hoorsada laaytan shaqeysada la Baydhabo oo horumar badan sameeyay 10 sano ugu dambeeyay ayaa waxyaabaha aadka ugu soo kordhay waxa kamid ah ganacsiyo kala duwan oo hal abuurkooda ay iska leeyihiin haweenka magaalada Baydhabo ganacsiyadan ay Baydhabo ka hirgeliyeen haweenka magaalada ayaa shaqo abuur waxa ka helay dhalinyaro badan Mukhtaar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo Janay